Somaliland guud ahaan waa salaamaya waxaan doonayaa inaan halkan ka gudbiyo fariinta xisbiga kulmiye oo hayo ummadda iyo murashaxiintoodu arrimaha nabadgelyada annagu waxaan mudnaanta koowaad siinaa arrinta nabadgelyada haddaan nabadgelya jirin aanay jirin horumar iman maayo nabadgelyada waxaynu kala qaadaynaa laba ta gudaha waxaa naga go-aan haddaanu kulmiye nahay in qof muwaadin kasta oo Somaliland naftiisa iyo hantidiisaba uu ammaan ugu helo goob kasta oo ka jooga Somaliland oo ay ballan qaadayso xukuumadda iyo dawladda nabadgelyadiisa waxa kale oo ballan qaadaynaa inuu helo garsoor xaq ah haddii uu dulmi tirsado isaga oo ay xukuumaddu ballan qaadayso inuu muwaadin kasta helo garan xaq ah oo u kala xaq sorta isaga iyo cid uu ka tirsanayo baayic mushtari noo socon maayo maalgashi dibadda inoo maayo tacliinna baran mayno haddaynaan dhisin ciidamo amni oo inoo ilaaliya nabadda waxaan xoog saari doonaa dhismaha hay-adaha amniga booliiska wardoonka jeelasha maxabuuskii markuu tago jeelkii waa in wax la baraa ee aan lagu ciqaabin oo uu ka soo baxay isagoo bulshadii wax taraya waxaa isku xidhan ciidamada amniga iyo madax dhaqameedka waxaan kor u qaadi doonaa aqoonta ay u yeelanayaan dawladnimada iyo ismaamulka madax dhaqameedka iyaga oo hogaaminaya bulshooyinkoodii oo dhaqankeenu sugnaa ku wada haddana in la jaan qaadi karaan cilmiga casriga ah waxaan nabadgelyada u abuuri doonaa oo xoojin doonaa dhalinyarada iskuullada ku jirta da'yarta in la baro wadan jacaylka iyo wadaninimada iyo u hoggaansanaanta shuruucda wada xaajoodka iyo in wax badan u dhameeyana ilaa in ilmaha yar ee iskuulka soo bilaabaya la barin doonaa taas waa arrimaha gudaha arrimaha dibadda caalamka kama maarano adduunkana uu isku xidhan yahay adduunkana dhibaatooyin badan baa ka jira waxaanu xoojin doonaa ciidamada qaranka si ay u hubiyaan in xuduudaha Somaliland ay ammaan yihiin oo aan cadow u soo guurin waxaanu iskaashi buuxa la samaysan doonaa caalamka oo dhan wixii nabadgelyo ka shaqeynaya waxaanu ka hortegaynaa wixii khalkhal geliyay nabadgelyada Somaliland ta gobolka iyo ta caalamka waxaanu abuuri doonaa tala wadaag iyo xog la iswadaarsado dawladaha gobolada ee aynu jaarka nahay oo aanu mudaad siinayno ka wada shaqeyno nabadgelyada gobolka waxaanu diyaar u nahay oo aanu ku shaqeyno mabda'a ah khilaaf kastoo yimaada lagu dhameeyo hadal